السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال ولا يال أمانتين aad baa idin salaamay maanta waxaan rabaa inaan halkan saaxib yaal idin kusoo gudbiyo fikrad ganacsi business idea run ahaantii waxa weeye aad saaxib yaal aad waxa weeye aad uga faa'iideysan kartaan businesskaas oo saaxib yaal dhaqaale aad u yar oo run ahaantii waxa weeye kaga baxayo oo waxa weeye laakiin faa'iidadiisa ma taqaanaa iyo profitkiisana waxa weeye run ahaantii wax badan aad saaxib aad ka faa'iidi kartid walaalayaal saa ogtiin ma channelka waxaan kaga hadalnaa sida waxa weeye online looga shaqeysto iyo waxa weeye fursadaha ganacsiga dalkeena waxa weeye run ahaantii ka banaan magacayga waxaa la saaxib yaal Geelo Bashiir haddaan ugu cusubtahay fadlan nagu soo biir waxaa kaloo kaa codsanayna kaliya inaad waxa weeye videoga saaxib like noo saartid haddii aad wax ku anfaco aad mataqaana aad ka heshid saaxib yaal ganacsigan maanta wuxuu ku saabsan yahay t-shirt business waxa la dhaho oo waxa weeye qaab waxa weeye looga ganacsado waxa weeye t-shirtada sida loogu sameeyo waxa weeye customize waxa dhahaan oo waxa weeye fanaanadaha kale baa dushooda waxaad ku qoraysaa magacyada logooyinka sawirada iyo wax walba oo qofka saaxib mataqaana oo ka codsado baad ku qoraysaa mashiinkan aad u jeedaan waxa lahaa heat press baa lahaa heat press waa mashiin saaxib loo diyaariyay in mataqaana uu ku sameeyo waxa weeye fanaanado qofka magacuu rabo oo raan saaxib oo mataqaana oo ku qorto kaliya ma ahan mataqaana fanaanadaha xataa mataqaana hoodiga la dhaho oo koofiyada kale waxaa rabtaad baa ku qoraysaa saxamada kale qoraysaa bakeeriyada mobilka xitaa mataqaana keskiisa ama kofarka mobil kale waxa weeye inahaas oo dhan saaxib mashiinkan u jeedaan loo isticmaalaa marka saaxib mashiinkan qiimihiisa runtii aad buu u yar yahay $150 buu ka biloobmaa ilaa iyo $400 inta u dhaxaysa weeye mashiinada dabcan way kala duwan yihiin size-koodana isku size maahan oo waa mataqaana aad bay u kala duwan yihiin laakiin kuwa standardka $150 buu ka bilaabay ilaa $400 bay saaxib yaal buu mashiinkan u dhaxeeya heat press baa lahaa wuxuu ka caawinayaa marka mataqaana soo kale wadankiisa ogtii saaxib yaal ganacsi waxa ka bilowday aad u yar company kasta ama shirkad kastana waxay rabaan in mataqaana companygooda magacooda mataqaana fanaanadaha loogu buufiyo shaararkooda loogu buufiyo logooyinkooda loogu qoro mataqaana shaqaale kastaba mataqaana hadda aad ruhantii loo xiisiyo haddii noqoto maqaayad smoogta uniform dadka leeyihiin hoteelada kale waxa weeye all adiga wax saaxib business moolalka supermarketyada iyo waxa kaloo ka faa'iideysan dadka dhalinyarada caadiga shacabka caadiga qof kasta fanaanad hadduu ku keensado magaciisa baad ugu buufinaysaa wuxuu jecel yahay kale baad run ahaantii ugu buufinaysaa waxa kaloo kaga faa'iideysan kartaa adigu inta lafteeda fanaanada inta sameeysid baa waxaad ku qori kartaa waxyaalaha mataqaana xigmada sida mataqaana maamahooyin kale hadda dadka u badan dadka mataqaana ayagu English ba aad loo iibiyaa mataqaana dhiirigelimo mataqaana yar oo mataqaana kind of motivation yar oo kale in dushooda lagu qoro kale maamahayada af Soomaaliga runtii saxa mashiinkan wax badan buu ka anfacaya qiimihiisana runtii aad buu u yar yahay marka loo fiiriyo mataqaana saaxib shaqadu qabanayo marka walaalayaal businesskan waa business aad u yar oo waxa weeye dhaqaale yarna u baahan faa'iido badan oo noociisa kale run ahaantii uu Soomaaliya uu ku cusub yahay oo mataqaana qof kasta fanaanadu magaciisu rabo baa loogu buufinayaa wuxuu jecel yahayna waa halkaas baa saaxib yar loogu qorayaa marka xageeg baad ka helaysaa mashiinkan loo waxa weeye heat press mashiinkan iyo Amazon waa ka heli kartaa waxa weeye linkiga hoos baa kugu soo dhigaya halkaas saaxib yaal waa ka iibsan kartaan ama haddii waxa weeye Soomaaliga Amazon iska aata qofka inuu ka iibsado kale waxa ka u dirsan kartaa dalka waxa weeye China baad saaxib mashiinkan u dirsan kartaa haddii $100 ama $200 lagu siiyo $100 mataqaana oo delivery iska noqdo dee wuxuu ku imaanayaa $300 ilaa $400 Soomaaliya kugu imaanaya kaliya waxa u baahan marka fanaanada adiga mataqaana laftiga waxta fanaanadaha waa soo iibsan kartaa oo fanaanadii qofkii uu dooranaya mataqaana fanaanada taasara buu ku leeyahay ma long sleeve fanaanad gacmo dheer ama short sleeve ama hoodie fanaanadahan
mataqaan all waxa weeye tishaararka dhan waa soo iibsan kartaa qayb kasta xogaa ka iibsan kartaa qofka marka uu dooranaya magacay kugu qada marka waxa ka faa'iideysa fanaanadina qofka waad ka iibinaysaa waxa weeye customization waad u sameynaysaa iyo magacuu rabay iyo loogadu rabay iyo shirkadu ka socda wuxuu rabo halkaas baad ugu qoraysaa run ahaantii qaab waxay mashiinkan buu u shaqeeyaa waa standard si mataqaan original buu u shaqeeyaa waxa weeye shirkadahoo dhan hadda Nike ha noqoto Adidas ha noqoto kulli waxay isticmaalaan mashiinkan mataqaan heat press-ka brandada dhan fanaanadaha brandadooda kuwan isticmaalaan marka waa original weeye magacaas maaha magaca dhow cilad ka imaanayso ama mataqaan ka soo fuqay ama ka go'ayo ama hadii la dhaqo effect ku imaanayso mashiinka sax waa mashiin loogu talagalay shirkadaha waaweyn actually waxa weeye waa mashiinka ee saaxiibayaal isticmaalaan saaxiibayaal dhalinyaro badan oo rabo inay maalgashi sameeyaan oo isla markaasna raadinayo fikrado ganacsi marka dhalinyaro badan baa soo weydiisay dhowr fikir ganacsi marka waxaas si public dhalinyarada uga faa'iideeyay marka walaalayaal mashiinkan qofkii rabo oo u diyaarsan oo rabo inuu ganacsiga bilaabo oo serious ah dhabka tahay insha Allah waa ka caawinaya in mataqaana meeshu rabo mataqaana looga keeno qiimo macquul ah oo mataqaana markaas aan ka caawiyo Instagram-ka wakaasa wixii su'aalo qabtid mataqaana iisoo mataqaana qor insha Allah mustari waxa weeye dhalinyarada su'aalahooda saaxiibayaal halkaas waa looga jawaabaa wixii kale mataqaana caawinaadana insha Allah saaxiib waa idin ka caawina saaxiibayaal kaliya waxaan ka codsanaa hadda ka heshay fikrad ganacsi fiidowna laakiin sartid bilaash weeyda laakiin haddii aad nagu cusub tahay fikradaha ganacsi iyo qaabka online looga shaqeeyo nagu soo biir waxa way channelka subscribe noo saa aad ma